adeegga dhambaal ee shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom waa adeeg kuu fududeynaya inaad hal mar fariin u wada diri kartid macaamiishaada. Macaamiil walbana fariintu ay si gaar ah ugu dhacayso lambarkiisa iyadoo loogu yeerayo magaciisa loona sheegayo qaanta ama deynta lagu leeyahay. Waxaana ay fariintani ku soo dhacaysaa ama ay ku soo baxaysaa magaca shirkaddaada. Adeeggan waxaa loogu talagalay xarumaha dawladda, goobaha ganacsiga, xarumaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada. haddaba macmiil si aad u isticmaashid adeegan ugu horeyn waxa booqataa internetka adigoo ka galiya browserkaaga waxaana ku qortaa IP addresska adeegga dhambaal waxaadna gelinaysaa username-ka iyo password-kaaga kadibna dooro baalki SMS waxaa ka sii dooranaysaa send SMS from file kadibna soo degso warqadda tusaalaha soo fur dukumeentiga sida tusaalaha kuugu soo degmaya kadibna ku qor listiga dadka aad fariinta u diraysid adigoo diiwaan gelinaya lambarka magaca iyo lacagta lagu leeyahay kadibna ku laabo bogga dhambaal waxaadna taabataa browse si aad u soo qaado faylkii waxaadna ku qoraysaa fariinta aad u diraysid macaamiishaada ugu dambeynna si fudud u dir fariintaada fiiro gaar ah userka iyo passwordka waxaa ka qaadanaysaa xarunta kuugu dhow ee shirkadda sidoo kale message-ku waa inuusan ka badan hal SMS oo u dhiganta 160 xaraf adeegga dhambaal ee shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom waxaa lagugu furayaa si bilaash ah haddaba macmiil fadlan booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda mahadsanid Golis Telecom